السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحت بان لقصليا وايو ديكتاتوري وقتيسي يا كويك ninkii ummadda Soomaaliyeed kala reebay siiba hawiye gumaaday madaxdii hawiye laba liqay ayaa mawduuciisu ku eg yahay insha Allah taala waan la dabaaldegaya dhalinyarada ilaa muqdisho ilaa beledweyne ilaa gobolada kale ka dabaaldegaysa ana halkaana ka dabaaldegaya insha Allah hadalkaygu waan sii bilaabayaa anuu miihi dadka yiraahdo inta gaarsii hadalka ma bilaabayo iyo dadka yiraahdo miihi aniga waan sii bilaabaya warku waan iskaga sii firdi baxaya aan kollaytaba waan ku sagootinaya rag badan oo sagootina jiro niyada ka og inuu baxay laakiin anigu waan ku sagootinaya saaxiib waan ku sagootinaya zagantis baan ku soo diraya hooyooyinkii Soomaaliyeed malinkan madaxweynaha laga dhigay hooyo wiilkeedii fiyoobay ayaad Cabdullaahi Maxamed farmaajo ka oohisay waa dishay ama madaxada loo dilo dadkaaga baa dilay ama kuwa lacag soo siiso hooyo hawiye iska barooratay balse anagu 4 sano baan ku dulqaadanay caawa moo waqtigaagu ku egyahe waxaan ku leenahay dabcan anagu dhalgobid baan nahayo kula dagaalimayne salaama baan ku leenahay hana nagu soo noqon dib dambana magaca u sheegi mayne war goboladii hatee isku dirtay qabiilooyinkii qoortaad isku gelisay maxaa logoga xilaanayaa warnacsow maxamed cabdullaahi farmaajow waan ku salaamaynaa saaxiib 4 sano waad ka qoysatay waddankan dadkii waad gumaaday ilmihii yaryarka ahaayoo hawiye laaysay madaxdii hawiye ka faa'iidaysay waxaad dili kartid waad dishay waxaan ku leenahay marka saaxiib awooda ayaan waxaan kuu soo marinaynaa inaad waddanka adoo leh salaan u saaraya waddanka inaad iskaga tagto oo tiraahdeed meel kuu dambaysaba meel haa kuu dambay Ethiopia yani waxa la sheegayay kollaytaba guri ka dhisatay Ethiopia aakhirka iyaga ku dili doonay war soo dhawaada meel ka soo joogtaan wariyaha wiyow qashin barnaamijka sheer gareeya markii la garbaashayo daaroodkii iyo isku yaaciisi iyo maxamed cabdullaahi farmaajo iyo markii la garbaashayo waxa weeye ma sheer gareysaan laakiin aniga markii ayaguna garbaashayaan waad u sheer gareysaan oo arkaa tiri waad ku faantaan warkeena anaga xaqiiqada ugu sheegayna dhalinyarada iyo dadkeena iyo maxaad u sheer gareeylaadin sheega cudur baad qabtaan war maxaa hadda idii tala caaway ku eg tahay wiyow caaway ku eg tahay doorashadu markay imaanayso kollaytaba hawiya dhalinyarada hawiya ama odayaasha hawiya waxay qabaan cudur la yiraahdo daarood carfisa daarood ay qabaan meeshii walaalkooda inay ag fadhiistaan ay la talaystaan la rabay ama ay ugu shubaan waxay ag fadhiisanaan mid daarood ay carfisanaan say ugu shubaan erika maalina waa barooraan ogow oohina ku taagan wiila laga dilayay war caadi iska dhiga kama Allah diga gooyada male hawsha caaway ku ag mid kale dhalinyarada reer muqdisho hawada ayaan waxaan idii soo marinayaa fartiin kala wareegi ayaa caaw lagu jiraa caaw waa kala wareeg hawshu yaan laga faa'iideysanin magaalada ha aadi gurigaada joog ilaahay tawakkal duko salaada duko duceyso gurigaaga ha ka tagin jaaniska hata dad kuugu simi kara caawa keliya ma ahan ilaa biri hadduu hata jaanis kuugu simi karo ani taasan ku siinaya ilaa biri hate waxaad bannaanka aad iskaga day kartid hadday jiraan gurigaaga iska joog sababto ah waa la isku aruursaday
وقف والبو اسكو هبر وعدين ضد كان كوا كسو هرجيدي او دولد iyo qoladii mucaaradka ah waa la isku habar wacday markaan waxa uu la talinayaa dhalinyaradiina hadad magaalada aad ka fursan kartaan ilaa caaw ilaa biri ha isku bixinaa digtoonaada kullaytaba hiiraan waxaan arkay oo laga dabaaldegayo leeyahay dictatorigi timkiisu waa dhamaaday hiiraan ewalba kaas horay u nacbad ninka leeyahay dabageedna kullaytaba dadku wax isku raacay ewalba inta habeenkii uu ag tahay hebel formaajo yani intaas hal sugo ka bacdi dabada looga dhaca caaway ku ag tahay biri wixii ka bilowdana beledweyne waa sugeynaa ninkan murusado dabageed la leeyahay oo xawaadla saarka u ah kullaytaba asigana waa nin murusada waa la soo ogaaday taas qolaa noo qarisay suugo nooga dhigtay tiri waa xawaadle waa cali madaxweyne laakiin ma ahano waa murusado gubabxa iyo galhareeri iyo dhulkaas uu ka soo jeedaa ninkaas marka asigana waa la soo bixinayaa oo dabada looga soo dhacay waa laga manaashaqooday marka waxaan leeyahay hawiyow hadda biri ha ooynaha markaad shiraysaan oo meesha yani la isku dooranaya dadku ay wada tagaan mid kastoo hawiye ah maxarta mid kastoo hawiye ah mid daarooda oo uu ag fadhiisan sababtoo coognimadiina aqaana aniga دارود عرفيسه وليين بعد سياسه حكومه جري وما دهيسينو هدبا حدد بري هدنا عاد اسكو دغاليسين ان هذا مثال حسن شيخ ilaahay ka baqa hawiyo waa is ognahay dad soo talreero is oganahay haddaad habar gidirtiin haddaad abgaal tihiin haddaad murusada tihiin qolo kasta waa is ognahay runta isku sheegnahay hawiyo xasan sheekh iyo ninkan hadda caawa timeka uu agyahay markuu yani markay tartamayeen xasan sheekh meeqa ka dhinneed okay intii ka dhinneed hawiyuhu wuu ugu shubi karay wax yar ka dhinnaa waxaad ugu shubteen farmaajo kuwii farmaajo ugu shubay wallahi oo billahi oo talla wiilashoodii waa laalaa gabdhahoodiina waa laalaa qaraxna kuma dhimane ugu talagal xabada lagu dilay adoo nima doorata ha ku gumaado shalay walaalka ka cararaysay war madaxdiina aawe hawiyo madaxdiina aawe balaayam malay ka timiday ana la arag beedka hadiga dhacday hawiyo aaw madaxdiina aawe waraa farmaajo ku maqan tahay waraa habeen dhaweeta ugu dambaysay odaga wuu ka badbaaday allah u naxariisto qaraxii waliba wuu isdifaacay oo laba nin uu dilay waa la ogyahay laakiin yaa dilay harmaacada dishay loo yani nimankii loo soo diray ayaa qolkiisa ugu tageen wiilashiisa Canada jooga la hadlay gabdhiisa la hadlay labaan dilay waana nabad qaba ciidamadii hadda soo galeen dawladda telefoonka iga daaya qolkiisa loogu galay dhac waa la dilay nacalla dikiyo waaridkiinba ku yaala hawiyo nacalla wixii idin sheegto ku yaala boon oo dhashaadtiin waxaad isku nacaysiin kan waa habar gidir xawaadle balaayo qaba habar gidir isku deegaan waay maalin walba is juciyaan waxay isku nacayaan deegaan si isku xigaan war ilaahay kugu dhaarshay murusada abgaal ma ogolo xawaadle habar gidir ma ogolo fiiri isma rabtiin balaayo sun baasad cunteen wallahi oo billahi oo talla wiligiina daaroodii talina wiligiina oo idin muudsana wiligiina oo idin dubana intoo idin dilo hadana idin inkira oo idin xukuma inta loo arkay taas war waa ku dilay raalaha walaalo la garay inuu yani nadilay anagoo og ayaa hadana oo si inkiraaba oo afka si tirtirana waxaas wax suurta galamaya warka si fikira maamkiino ha shaqeeyo aqligiino ha shaqeeyo yani dad wax soo bartay ka buuxa dhalinyarada hawiye u daaya talada odayaashan baaso ordayo oo maalinka la is dooranayo la leeyahay maxaa la dhahay nabadoona dadka soo doorana ruuxaas wax soconaa ma aha xildhibaankeen markii la yiraahdo xildhibaankii la geeyo dhalinyaradu shaqo markay doonanayaan xildhibaankii aadayaan telefoonka ma qabanayo war haduu yani qafa ka sukayso waa in lacag siiso oo marka lacag siiso kadib lagu geeyo ruuxaas wax soconaya war dhalinyarada hawiye bahdila ku disheen dhulkaad ku jiideen walaalayaal dadka dhulka ka qaada wallahi dhulka saan kula haneynaa uqsum bilayna saan kula haneynaa daarood waa is soo dardaarmina laakiin anuguna halkan dardaarana idiga soo jeedina haddaad hawiye tihiin
barnaamijkaygana sheergareeya kolba hawiyaa tihiino barnaamijkayga ma sheergaraynaysaan kuma qanacsanidiino daarooda shiirshiirinaysiine walaalayaalow barnaamijkayga ama sheergareeya ama ka taga daaroodkii naftigiisaaba ii sheergaraynaaba sababta ah wixii hawiye wixii daarood garbaashaya arka wiilka hawiyoona garbaashayay leeyihin ayagaaba sii xawilaya aniga intaasaa faa'iida ugu jirtaa weligii baa gudbina haddaad doontaan laakiin dhegtaa waxaad iigu sheegaa wax ma garatay ah gabdhihiinna maalin walba wixii la rabaa laga samaystaa waxaa maqli jiray ku guursaday gurigaagiyaa kugu guursaday yacni gurigaagaa kugu imiday kuguna qabsaday ku qabso kuma qadi doontida ayd wada haysato madaxweyneha caawa ugu dambayso bal berri waxa wax doortaa waa hawiye wixii wax doortaa waa hawiye daarood wax ma dooro karo waa isnaqaanaha oo intuu meel iskugu yimaado doorasho dad ugu wada shubi kariyo nin hawiye ama wada doorey kariyo waxa wax doortaa waa hawiye taas waa la soo ogaaday dhulkana hawiye u badan waaye nin hawiye doorashada inuu doorato oo aqoon-yahan ah raalli miskaga tahay may raalli miskaga tiid haatee jareer dooro balaay ha kugu dhacday warbaadacaddo dooro gaaljacal dooro shiiqaal dooro ilaahay aa kugu dhaarshtay laakiin maalin walba cudurka aad qabtido daarood shinif la yidhaahdo niyo naga daaya ilaahay ka baqay naga daaya lix wallaahi oo bilaahi tala hadaawta waxaan maqlaya lix maxaa la dhahay lix bilood aa laga yaabaa in dib loogu celiyo oo waddanka talidiis soo hay aniga taas ma ku riyoonayo horta taas ma ku riyoonayo sababta aan ugu riyoonaynina waxay tahay soomaaliyaaba ka yeelaynin 6 bilood ninkaan ha haayo haddii la yidhaahdo dagaalkii adduunka iyo hal la islaayo kala fiignaa ayaa ka dhacayso marka maya dadka soomaaliya la talayo balaayadan baasoo afrikada iyo carabta iyo cadaankan isku tegay reer galbeedka ma yeelaan midda meesha ka socota way u jeedaan marka ma soconayso waa qasab doorasho in la helo qasab waa taas waa mid lagu qasban yahay waa in doorasho la helo marka waxaad leeyahay insha Allah ta'ala wixii qarax u dhigeen ee ayuu soo abaabuleen hawiya oo madax ahayd ee al-shabaab u saariyeen oo beebeen ma ayaan wata afgooye markii qaraxu ka dhacay yaa soo gudbiyay 3 nin oo askari yaa soo gudbis nin darajalaha soo gudbiyay habeenkii xaguu ku bariyay qaraxu xero booliis ku bariyay wax suurtagal ma dabagal lagu sameeyay wixii oo dhan waa la soo ogaado walaalayaal waxaana dilaa waa asiga ninkan waxa dhanoo dilaa waa ninkan shalay muxuu lahaa jidka fura wadanku habiyo noqona gobol kasta oo shaqeeyna markuu madaxtooyada galayna muxuu noqdo labada indhood iska tolay qabdha sharoota dhab kaas madaxweyne ma aha kariye hadda waxaan ka sheegaa waaba dambiye war iska kii cafi balay ala ku rideedan wallahi caawaba kuugu dambaysanayo iska kii cafi saxabo inta hadda aan ku leeyahay bil iska kii cafiniyo time-kaadi waaba dhamaaday eeshiyaanka markay leeyihiin saacadii way dhamaatay waxay yiraahdeen time qatam hoogaya marka time-kaadi saacadii way dhamaatay barada intaan hadda aan warkaas soo gudbiyay iska kii cafi calashan waa kugu sagootinay inaad hawiye arxan u gelin kitaabadoodii aad u laabtay kitaab nagama gubin anaga laakiin waxaad nagu samaysay wax la yiraahdo cadgoosiya nagu samaysay laakiin anagu ka cadgoosamayno jasnaba la taagaya madaxtooyada oo kugu tagi karnaa waa kugu qalaalufi karnaa waa kugu dudi karnaa madaxdan naga laaysay madaxdeed kale oo madaxtooyada kula joogtaan kaaga argoosa karnaa laakiin anagu waxaan leenahay dad waxaan nahay ka darajo badan dad ka darajo badan nahay anagu sideenaba waa ka darajo badan nahay waana ka aqoon badan nahay marka laakiin hal mid waxa ciil nagu haayo ninkii Soomaaliya difaaci jiray oo ogtihiin oo dagaalkii 77 inta yaani ciidamadii soo jabeen ninkii loo diray oo dagaalkii Itoobiya kiciyay amalkiisa waxaad ugu dhigtay adoo dhano madaxweyne jagadu ugu tartama hawiyo ugu dira waa jaanis hotelkii waa la qarxiyay kaasoo al-shabaab ma qarxi karo sahal ku dhima maha harama caday galay wiilad u dir daarooda waxa tiraahdaa dila shalay wuxuu difaacayay
ogaadeen iyo majeerteen iyo mariixaan uu difaacay oo Itoobiya oo ula dagaalay oo guulo waaweyn ugu soo hooy waxa darajo ugu dhigtay marka asoo laba nin oo al-shabaab dilay oo iska difaacay ee meesha ugu soo galeen oo ognahay inaad u dirto saddex nin ninna mariixaan yahay ninna majeerteen yahay ninka kalena qabiilkiisa waa iga maqan yahay ilaa hadda anaga saasaan ula soconaa wax walba anaga saasaan ula soconaa marka kulay tabaad waqtigaagii dhamaay ninkii ka horeeyo hawiye gedo daawo iyo raashiin ku casuumay inuu la fadhiisto la tashto see wax u qabanaa yiraahdo aduguna waxaad ku hogaamisay ciidamo ku hogaamisay waad ogtahay 8 qofood hal goob ku wada dhuf bab hooyo caruurtii aabihii waa dagaalkii ugu dambeeyay habeen dhaweed marka walaalo taariikhda ku qori doontee niyo waxaan kula yahay saaxiibo nagu kala wad maca salaama dadkan magaalada Muqdisho ku nool oo dhinac kasta iskugu jiro ummadda Soomaaliyeed caawa magaalada yana la aadin is ilaaliya ila birito la dawlad yiraahdo ilaahana idila jiro dictatorigas ana waxba ka filan waan idin salaama dhamaantiin maalka soo adduunka ka joogtiin waxaad leeyahay good luck ayaan idin leeyahay anu Muqdisho waa tagay ayaan dhaweeto hal kelmad idin soo dhaaf wallahi billahi taala Muqdisho waa tagay Muqdisho marka tagay waxa lagu yiri intaana bixina waxa lagu yiri noo Muqdisho way qarax badan tahay baraad iska joog ha bixinayo kuwa baxayo lugaha ka soo go'ay kuwa ku dhintay jiro qurbaa ka tagay ha bixin iska joog waxaana yani ana la joogi karin aan jiray oo inuu wadankii aan tago dantii aan u baxay ma ka baaqsan karin waa tagay laba habeen xaafad jiiftay ka bacdi waxa yiri arimo magaaladan waa ina yani ku soo warwareega okay ali magaalada waa la sheegay marka waxa la yiri magaalada barada waa qarax badan tahay ama adiga jagnu hawa ma yeerta ma yadheena wad bal maxaa u waday dhibaatada taagan waxa xasuusta Madiina u soconay Madiina intaana gaarin ayaa meel wax yar aan dhaafnay bow gaari aan saarnay bow oo leeqaday gaarigu wuu istaagay aniga waxa yiri saaxiibeel oo Madiina sheegay maxaa noo istaajisay markaas wuxuu yiri xariif oo ay ninka waday wuxuu yiri hadda gadaasheen qarax ma ka dhicin wax yar ma noo jiriyo aha okay qarax kala naga horeeyo ma gudbayno barteena taagnaaneen wax yar marka taagneen haddana horteena qarax ka dhac markaas yaa haystay Abdullaahi Maxamed Farmaajo haystay wadanka asaa haystay taymka waxa ahayd wax xusuustaa 2 saac habeenimo ee taymka 2 saac habeenimo ee markii niyo anigu markaa wadanka tagay gacan iyo lugu ama ku soo taagay si la isku dilaa si uu qarax u dhacaayo inta dhan waa soo arkay meesha ina dadka lagu dhibaataynayo magaalada Muqdisho wallahi waxaan arkay hatay gabar galab waqti adiga 9 saac amal ay tahay jaamacad ka timiday oo laami iska maraysay ina niman gaari muraayado beensala ayay wateen gabadhii waa la soo ag maray le bub hal xabba loo dhiibay halkii ku dhimatay dhalinyarada kadaalika oo kale tasaasa la isku yani loo soo farmuqa bub wala dila gaariga waa bartiiray yaa loo qabsanaa marka yaa loo qabsanaa okay ninkii madaxweyne wadanka ka ahay waa kaas nimanka saan sameynaya waa niman dharcad waa niman asgar waa niman wadanka qaynuunka oo ku shaqeynayo systemka oo maaragtay ama systemka dharcad oo madaxtooyada ka qoran ama militariga dharka laga soo dhigo caadiga yani sidii u shaqeynaan waa caawa magaalada Muqdisho adoo jooga hadad Facebook live soo gasho oo tiraado askariga halka ka taliya ama madaxweynaha waasaan ilaahay ka baqamaan la isku iimaanay waxa dhan oo dhalinyarada loo dilaayo intaas ay ahayd kuwa kale ani waxa ogaay abgal cismaan oo magaalada Muqdisho jooga oo saaxiibanahay oo Facebook ka soo baqbaqay jiray wallahi billahi taala hal xab inuu ka joogo kulli way ka wada carareen deexda ka wada dhaceen guriga hooyada iyo aabe yaa iigu soo galay ama asalkayga aan ka soo jeedo awowgay uu ku dhashtay yaa iigu soo galay ka dhacday halkaas ay wada tageen waayahay
xasan sheekh markuu haay waraa wiil hawiye ma ka carari jiray muqdisho war sheekh shariif markuu haay wiil hawiye ma ka carari jiray ay haduu dhacday ma le saad aragtad una loo jirteen maanta ina waxaad aragtaa la idigu sameynaa walaalayaal gabar hawiye xafiis shaqo u doonatay abay dabadaada hormariyaa taagan xasan sheekh ma jirin waxaas sheekh shariif ma jirin waxaas waraa ka digtoonaada waxa soo socdo aayatiinka ilmihiina dambo ama ubaxa hadda joogo oo wax soo bartay meesha u shaqo doonanayo dhibaatada lagu samaynayo waraa ka fikira aqli haddaad qabtaan waa aqli haddaad qabtaan waan idin salaama ani war hay ugu daalina kulay taba hawiye waa dhagaxo war laguma karo hawiye war waa dhagax waa nimankii xawaadlo intii jidka galeen waa warkii ka yimid habargidir dhacay $50,000 u xirtay la siiyey habargidirna 4 gaari $200,000 u xirteen saasaa wadatiin kurtiina madaxadaygaas wada qabtiin waran ugu kala wadanay wasalaam calaykum waxa doontaan sheegaanay